السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإذن سلامي إلهي وحا إذن كجرجينا يا عمري دير عبادة دميسترن إي عافيماد دان ملكستو دنيا كجوكتان كسو دوادا جانل كيس أنفع قعمة فرن ودنا فرن كسو دوادا وولاشين شكرم مرلبات إي مرسدحات سو دوادا واد مهدسنتين دادكين هورا إيغو حرنا دادك عصبنا إيغو سو حرمي دونان واد مهدسنتين أدين كنا سو دوادا maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago ilaa 8 qodob ee u baahan inaad adiga isku ekaysiisid ama isku koobtid sababta ay tahayne mararka qaar waxyaabaha qaar waxaa muhiim ah inaad adiga isku koobtid intaad soo shaacbixinin sababtoo ah wax guul aad ka gaarin ama wax aadan maaragta hore u sameeynin hadii aad dadka la wadaagtid niyad jab la kulmi kartaa iyo caajis fara badan iyo maaragtay caqabado kale oo tiro badan marka 8 qodob insha Allah bal eeg ee isku day hadii aad marka midka koowaad waa maxay midka koowaad waxa waaye hamigaaga koowaad ama yoolalkaaga weyn ee ugu weyn aad rabtid inaad dunida ka gaartid waa ognahay dhamaanteen hal guul aan wada rajaynaynaa waa mid naga wada dhaxaysa muslimiinteen oo dhan oo ah kulligeen inaa Ilaahay janno firdawsa na wada galiyo balse mid waxaa jirto iyo kuwa kale badan oo adiga qaas ku noqon karo kuwaas qaaska kuwa ugu waaweyn aad ugu jeceshahay oo rabtid inaad dunida ka gaartid inta aad nooshahay uma baahnid inaad dadka qaar u sheegtid waana muhiim inaad adiga isku koobtid sababtu waxay tahay mararka qaar waxa laga yaabaa qofka inay maxay ahayd caqabado kala kulmaan iyo niyad jab badan ee ku dhahan hebeli heblaaya hore u soo sameeyay adi ma sameyn kartid adna niyad jab kugu dhaco wixii tilaabo iyo ma aragtay ficil aad qaadan weysid sidaas darteed waxa muhiim ah inaad adiga isku koobtid ilaa aad adiga ka salgaaraysid Ilaahay idinkiis ducaa iyo dadaalna muujinaysid hadii ay baha awood la idmo midkii labaad oo ah camalka wanaagsan dhamaanteen waa naqaanaa sida ognahay salaada sadaqada soomka maxay tahay qofaad naxariis u sameeysid qofaad u gargaartid qofaad garab siisid qofaad tala fiican siisid qofaad maxay tahay ra'yi fiican siisid qofaad gacanta qabatid qofaad maal iyo ma aragtay maskaxiyan ba aad dhistid iyo waxyaabo kale badan marka sidaas darteed taas oo kale waxa muhiim ah in adiga isku koobtid waayo waa amal adiga iyo Ilaahay idin ka dhaxeeyo oo u baahneen dadkina u sheegtid dadkana waxay u badan tahay inay qalad ka fahmaan ee u arkaan inay istustus ka tahay adigana ajarkaaga meesha aad ku haysid sidaas darteed waxa muhiim ah inaad adiga isku koobtid waa kaasi wuxuu ahaa kii saddexaad markan saddexaad waxa waaye waxa adiga qaaska ku ah noloshaada waxa gurigaaga ka dhaxdhaco waxa sariirtaada ka dhaxdhaco waxa jikadaada ka dhaxdhaco waxa adiga familkaaga idin ka dhaxdhaco waxa adiga ninkaaga ama adiga naagtaada idin ka dhaxdhaco waxa adiga ciyaalkaaga idin ka dhaxdhaco wixii personalka ah waxa adiga qaaska ku ah uma baahnid dadka inaad u sheegtid sababtoo ah waxa laga yaabaa dadka nolosha adiga haysatid inay haysanin waxa laga yaabaa oo kaleeto inay talo xun dadka qaar ku siiyaan marka waxa u baahan tahay inaad koow adiga isku koobtid labana aad onni u sheegtid kaliya aad u sheegtid dadka ku kalsoon tahay oo hubtid inaad talo fiican ka helaysid ama meel wanaagsan ay kugu hagayaan hadii kaleeto waxa laga yaabaa inaad dib iyo dhaawac badan la kulantid maxay ahaydana wax tar badan aad heli weysid iyo talo wanaagsan markaasna ku wareertid laga yaabo dadka qaar way ku waashaan dhibaatadaas oo kaleeto wixii marka adiga qaaska ku ah adiga ee qaaska ku yin qof qaas ah u sheego oo og tahay inaad wax ka faa'iideysid kan afraad waxa waaye nolosha adiga waxa aad ka aragtid saad u aragtid sida adiga kula wanaagsan oo ahayn wax ku saleysneen wax diin ah oo adiga ra'yigaaga kaliya ah laga yaabo adiga inay kula wanaagsan yihiin laakiin si dadka kale ay la wanaagsaneen sidaas darteed waxa muhiim ah inaad adiga isku koobtid unless qofka adiga ka wareysto si toos oo adiga qofka ku dhaho haye noloshaada iga sheekay maxaa soo martay maxaa ka faa'iidi kartaa maxaa ka khasaaro ahaa maxaa kaleeto markaas waa u baahan tahay qofka inaad la wadaagtid balse qofka asagoo ku weydiinin ma u baahnid inaasan ka gelisid waliba aad ku dhiirigelisid inuu sida adiga u soo nooleedo kale u noolaado maadaama adiga ay saa kula wanaagsan tahay eena ma aragtay ahayn wax adiga qaas ku ahaayeen balse laga yaabo inay wax fiican ahayn tusaale ahaan inaad ma aragtay wax qaldan aad ku soo nooleedo ilaa hadda kula wanaagsan yihiin waxaasna diin ay sal ku haysanin balse wax adiga kan shanaadna waxa weeye
sirta qof markuu sir kuu sheegto waa muhiim inaad sirtaas haysid ood qofna u sheegin si kastaba qofkaad adduunka ugu jeceshaa u sheegin qofka maaragta ugu kalsoontaa u sheegin waayo waxa adi hadee hadal wuxuu ammaan yahay intuu afkaaga ku jiro haddii adiga afkaaga kasoo baxo adi hayn weysid qof kale marka inaad ku dhibtid mahan oo dhahdid ay hebel waxaan waa sir qofna ha u sheegin laga yaabo qofkaas qof kale ku kalsoon yahay inuu sii sheego qofkaasna qof kale usii sheego qof kale warkii oo xawaaji la mariyo hadhow kusoo gaaro sidaas darteed uma baahnid wuxuu qofku ku qarsado inaad qof kale u sheegtid qofka kuugu dhowba ha ahaadee sir waa sir marka kaliya oo sheegi karto waxaa marka qofkaas khatar ku jiro ama dad kale khatar gelin karo marka ama asaga isdilaayo ama dad kale dili karo iyo wixii kaloo la mid ah kii lixaad kan lixaad marka waxaa weeye qodobka lixaad waxaa waaye cabsidaada iyo meelaha aad adiga daciifka ku tahay waa muhiim inaad adiga isku koobtid cabsidaada iyo waxaa muhiim ku tahay ilaa aan ka ahayn qofa aad iyo aad ugu kalsoon tahay ama wax ka qaban karo waxaas sababtaa iskugu koobaysa waxay tahay laga yaabo qof adiga ama cadowgaaga ah ama ma aragtay rabo inuu adiga ku dhibaateeyo inuu hadhoodi ku isticmaalo adiga meelaha aad daciifka ka tahay iyo waxyaabaha aad ka baqaysidna inuu ku adeegsado sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad adiga geesnimo muujisid oo baratid waxaad ka cabsanaysid inaad adiga isbartid kadibna aad la wadaagtid qof adiga qaas ku ah oo 100% hubtid insha Allah oo waxaas wax ka bedeli karo kan toddobaad waxaa waaye hibada ama heybada ilaahay adiga ku siiyay hibada ama heybada adiga ilaahay qaas ku siiyay qof kasta kuma farxayo mid waayo qof kasta ma haysto waxaad adiga haysatid sidaas darteed ma ahan inaad dadka u sheegtid waxaa muhiim ah inaad adiga isku koobtid balse dadka ay ka arkaan actionkaaga ficilkaaga inay ka arkaan waxa adiga aad hibada u leedahay oo ilaahay hibada kuu siiyay haddaad adiga isticmaashid dadka iyakaaba arki doonaba tusaale ahaan laga yaabo inaad hibo u leedahay kubadda sida loo ciyaarina xariif ku tahay quraanka inaad dhaqso xifdin kartid xariif ku tahay inaad guri dhisi kartid xariif ku tahay in ma aragtay hadalka aad xariif ku tahay inaad dadka ma aragtay heshiisisid xariif ku tahay inaad maalka sida loo sameeyo xariif ku tahay oo laga yaabo inuu adiga hibo ilaahay ku siiyay qasab ma ahan dadka oo dhan inaad la wadaagtid taas dhaad ay waxaana xariif ku ahay kaali arag waxaana xariif ku ahay ana qatar ku ana ka caawin karo qofka inuu ka arko way ficilkaaga ma ahan ina kani waa kii sideedaad oo ahaa kii u dambeeyay markan sideedaad waxa waaye waxa adigu farxad galiyo ma baahnid inaad dadka dhan la wadaagtid dadka dhan u sheegtid inta ka ahayn dad qaas ah ama qof qaas ah oo hubtid oo ma aragtay farxadaada farxad kale kuugu sii daraayo sababtoo ah dadka qaar farxadaada waa u naxdin marka maadaama ogaan kar si fudud lagu ogaan karin balse qaabka iyo body language laga ogaan karo qofka adiga kugu faraxsaneen insha Allah video kale idinkugu soo sheegi doonaa qaabka ku ogaan kartid qofka adiga ku faraxsaneen aniga waxa bartay cilmiga psychology-ga iyo sociology-ga cilmiga nafsiga ama cilmiga maskaxda iyo bulshada marka insha Allah waxyaabo kale badan aad la wadaagi doonaa farxadaada la wadaag qofka kaliya ee farxad kale kuugu dari karo ee hala wadaagin qof adiga ka naxayo ama nacayb cadownimo kuugu soo badinayo waa sidaas nabadgelyo insha Allah dadka la wadaag like share saar mahadsanidin salaamu calaykum